naftu sida badan waxay jeceshahay inay raacdo dadka magaca leh, maamuuska leh ee mansabka haya, dadka lacagta leh inay raacdo, dadka korkoodu ay ka muuqato quruxda, maaragtay qaayaha, dhaldhalaalka, waxyaabahaas ay jeceshay inay raacdo oo kaaga dhawaato. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa ula dardaarmayaa, dadna wuxuu ku leeyahy wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah. waxaad naftaada ku sabirsiisaa inaad la macnoqoto oo la joogto oo xilli la qaadato kuwa gelin hore iyo gelin dambeba ilaahay caabudaya subxaanahu wa tacaala, iyagoo waxay doonayaan yuriiduuna wajha, aanay ahayn wax kale mooyaane inay ilaahay la kulmaan subxaana wa tacaala. kuwa gelin hore iyo gelin dambeba ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya ee maaragtay goobaha cibaadada jooga ee ilaahay kaaga dhow, ee adkaarta wada, ee qur-aanka wada, ee sooman, ee khayrka wada, kuwa macooda ahaw ayaa lagu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya. balu fiirso, indhaha ha ka lalminin oo ha ka fogaanin oo iyaga ha ka baydhin baa laleeyahy. sababtu waa maxay? adigoo doonaya ziinata alxayaati addunya, quruxda noloshan adduunya adigoo doonaya dhaldhalaalkeeda, kuwa ha ka fogaanin oo indhaha ha ka duwin oo ha ka lalminin. bal hadduu fiirso, ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy walaa tudic man aqfalna qalbahu can dikrina wattabaca hawaah wa kaana amruhu furuta. waxaa cajiiba markaan ka nimaadno dadka wanaagsan oo qofka u raaco oo ula macnoqdo oo waxa weeyaan dabcan ay saamaynayaan, hadhowta xitaa jacaylkiisii iyo cidduu jeclaanayo ay qayb ka noqonayaan, dabeetana qiyaamahana cid walba lala soo xashrinayo o la raacinayo cidduu jeclaa. taa markaan ka nimaadno waxaa cajiiba ilaahay dadkaa markuu ka hadlay sida uu aayadda ugu gebagabeeyey uu yidhi walaa tudic man aqfalna qalbahu can dikrina wattabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta. ha adeecin oo ha raacin oo xilli ha la qaadanin man aqfalna qalbahu can dikrina, mid qalbigiisa aanu dikrigayga ka mooganaysiinay, yacni xumaan uu la yimi aawadeed dikrigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mooganaaday, aanu u fududayn dikriga ilaahay. ha raacin kuwa. wala fiirso, wattabaca hawaah, oo hawadiisa iyo doonitaankiisa iyo rabitaankiisa iska raacay oo ka tegay ilaahay wuxuu doonayey, wanaaggu wuxuu ku jiray, badbaadadiisu waxay ku jirtay iska raacay. waxa weeyaan ka tegay oo raacay hawadiisa iyo xumaanta raacay. subxaan allah. marka waxa la isku xigsiiyey kuwa wanaagsan raac, iyo haddaad iyaga ka baydho ha adeecin kuwa qalbigoodu maaragtay uu ka moogan yahay ilaahay digriisa subxaanahu wa tacaala. saaxib, mar walba dadka xilliga ugu badan aad la qaadato ka fakar, dib u eeg. haddii dadkaasi ay kuu soo baxaan inay ilaahay ku dhoweynayaan subxaanahu wa tacaala, waa gobonnimo. haddii aanay ilaahay kuu dhoweynin ee ay kaa fogeynayaanna waa gunnimo. wanaagsana waa ilaahay. salaam. فمن علي بعفو